بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ إلهي باب محله إله كلان كيسكوك هنا ما ينم هذا علينا إلهي وحنا كبرينا تمر داف بين كبرينا بيله خير كلام صوص صونا إلهي خير كذا هاي نسيو أبارا الله هنا جت بيو أنت عطاك يا مع الدعاء وكلان كنا وكل أدقنا بدن وكلان نختارك كالصعدة كام هاشين اللو بحيه هملو aynu saaka halkan ku shaacayna weeye dhakhtarka waxaan leenahay bulshada gudaha dibadba ha loo midoobo dhakhtarka ayaa la siyaasaday yaan dana kale loo adeegsan waa dan guud bulshada ale ciidamo laha waxaan ku mideysanahay dhakhtarka gudaha beesha gudaha way ku mideysan tahay qurbahana waxaan ka rajaynayaa inay sidaas inuu midoobaan وصاك دكتور كلا شاعي كسوق يبقى طان إلهي وحنا كرتشينا أنا مش دخسان وقول لما هذا نقول دقاقه إلهي نتاسم كرتشينا وحنا كور هنا ديجا هو ديجان باللارن نقول بلن بحكومة بريه قلبيات بله كونفورية هود بله أي حكومة وحنا أجن هاي مستعفدي وشران goobaha caafimaadka waan ka war haynaa waa mastaafo aad u dheer weeye dib u dhac bay nagu ahayd deegaan ahaan ilaahay maantu ina garansiiyey insha allahu tacaala maantana waxaan u baahannahay si mug iyo miisaanle oo milgalan looga soo qayb qaato weliba qurba joogta waxaa laydinka doonaya arrintaa inaa u midowdaan in si mug iyo miisaan looga soo qayb qaataan baan idin rajaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad baan ku celinaynaa ummadda islaamku dhan waan faraynaa waayo waa waxyaabaha samafalkaa weeyaan qofkii wax soo gashadaaba aakhiro waa helayaa cid waloo danaynaysa waxaan leenahay walaaleel ka soo qayb qaata waa shay aanu filayna in muddo dheer la manaafacaadsan doono waa shay aad u ballaadhan oo rajaynayo in mustaqbalka sidaa loogu talagalay dhul ballaadhan loo qorsheeyey arrimaha waxaan filaynaa in mustaqbal dambe oo dheer insha Allah haddii isma laga sheekayn doono marka cid walba wax ka qayb gashatayba insha Allah waana aakhira miisaanka xasanaadka Allah ugu daro way ugu geli doontaa marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in baaqayga si dhaqso looga soo jawaabo loona midoobo dibadda looguna midoobo gudaha looga midoobo waayo halkan dhaqanka reerka jooga waa ku dhan yahay ganacsatada baa joogta dhaqaatiirta baa joogta qaybi gudiyada reerka jooga reer gudana waa ka midaysan yahay dibadana sidaas leeg baan insha Allah taala karjeeyna alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam allahuma wafiqnaa lima tuxibuhu watardaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qurba joogta qulqul joogta ganacsatada dhallinyarada iyo waayeelka dhammaan bulshada qiimaha leh waxa aanu ka codsanaynaa haddii aanu nahay dhaqankii beesha in laga soo qayb qaato dhakhtarkaasi kaam haashin oo baahidiisu runtii si weyn bulshada degan ay u saamaysay ummadda halkaa degan qadiimka ah muddada intaa leeg deganayd waxaa dhakhtar u ah hargeysa iyo laanqeyrta iyo jigjiga waa dareen runtii magaalo intaa leeg oo muddada intaa leeg jirtay in maanta aanay xanaano yarna lahaynin waa yandaro waxaan leeyahay cid kasta oo hindiistay ama maal ku bixisay ama tala ka dhiibatay ilaahay ha barakeeyo cid kasta oo maqasha oo soo ajiibtana maalkana Allah u barakeeyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala maqalka aakhiro ee baahida badan leh waxa baahi aakhiray jirtaa Allah kaga daboolo waxaan idiin sheegayaa hawshaasi adduunka aynu bixinaynaa manaafacaadkiisa ifka intaynaan helin aakhiro inagaga horeynayaa oo halkaas ku qiimo badan yahay ummadeenniina qofka hal qof badbaadiya ee sabab u noqda فكأنما أحيا الناس جميعا ضد المسلمين oo dhan qof badbaadiyay buu la mid yahay marka walaalahayga waxaan leeyahay
war ilaahay ha ka abaalmariyo raggaa inoo horseeday hawshaasi ee ka fikiray guda iyo dibadba waxaan leeyahay waan idinku hambalyeynayaa waan idinku garab taaganay haddaanu dhaqankii nahay walaalayaal horumarkuna halkaasuu ka bilaabmaayo waa waxbarashada caafimaadka waxyaabihii aasaasiga ah weeyaan ummaddu ay ku noolayd marka aad baa u mahadsantihiin waanaanu ku rajo weynahay inaad si wanaagsan uga soo jawaabi doontaan anigoo ah caaqil cabdiraxmaan caaqil shaciib waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa cisbitaalka ka qayb qaadashadiisa bulshadeennan hadday gudatay hadday dibad tahayba waxaan idinku bogaadinayaa inaad ka qayb qaadataan cisbitaalka laga dhisayo kaamahashina himilo gudi iyo dibadba inaynu si miisaan looga qayb qaadano intii hore ka qayb qaadatayna waxaan leeyahay jasaakullah khayr inta dambena dadaala inaynu gacan xoog leh ka qaadano guda iyo dibad ganacsato iyo aqoon-yahan iyo cid kasta qusaysaba iyo cid tabarucaad bixinaysaba guda iyo dibadba meel aad joogtaan taageeradiina ayuunbay wax ku noqonayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaa la yidhi haashin habeenkii uu dhashay buur baa gariiri jirtay gariirkan markuuna maqalba gariiri jirtay dabeed habeenkii reerkood dacalkeeda yaaluu dhashaa la yidhoo buurtii gelgeli jirtay baa istaagto haashin buur dabar baa la yidhaa markaa aad iyo aad baan caawa ugu faraxsanahay waxaan halkan dhammaantiin dhakhtarka in laga qayb qaato oo laga qayb qaato dhammaantiin halkan golaha haashin gudaha iyo dibad baan idin farayaa iyo wixii horumare ee kaleba waayo waxyaabaha waddanka lagu joogo kow dhakhtarku waa dhakhtarku kow buu yahay oo gabadha oo mushay haddii ilaahay beedanka ilmaha yaree imankana xanuunadu way iska fara badan yihin oo xumaday waxbaa kuwan soo baxay xumadaha umusha haddii la shil leeyahay waa kow weeyaan caafimaadku iyo wixii kale ee hadday tahay waxbarasho iyo hadday tahay wax lagu yimaadaba magaaladeena inaynu kor u qaadno ayaan idin farayaa oo laga qayb qaato haashaweyne saasaan idin farayaa waana magaciinnii magaciina kor u qaada